hay-adda Somali Student Equal Opportunity waa hay-ad dhawaan la aasaasay xarunteeduna ay tahay dalka Jarmalka waxa ay mashaariic kala duwan ka fulin doontaa gudaha dalka Soomaaliya. hay-adani oo ay madax ka yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed ee gudaha dalka Jarmalka taariikh ku soo galay wax ku bartay qaarkoodna ka shaqeeya hay-adaha dawladda waddanka Jarmalka ayaa sheegay in mashaariicdani ay isugu jirto xarumo caafimaad oo ay ka furi doonaan gudaha dalka Soomaaliya, waxbarasho lacag la'aan ah iyo shaqo abuur ay u sameyn doonaan dhalinta Soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa wax ku bartay iyo hooyooyinka danyarta ah. ugu horeyn Liibaan Maxamed madaxa maaliyadda SSEO Somali Student Equal Opportunity ayaa faahfaahin ka bixiyay mashaariicda ay Soomaaliya ka fulin doonaan hay-adda SSEO. Bismillahirrahmanirrahim. hay-adda SSEO Somali Student Equal Opportunity waa hay-ad ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Soomaaliya ku sugan iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo waddanka dibaddiisa ah iyo dhalinyaro Jarmal ah. dhalinyartan hay-adda aasaastay ayaa isugu jira macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha Soomaaliya, dhakhaatiir, injineero iyo arday dhigata jaamacadooyinka Soomaaliya iyo jaamacadaha waddanka dibaddiisa ah. muhiimadda hay-addan loo aasaasay waxay tahay in mustaqbal wanaagsan loo sameeyo dhalinta iyo carruurta Soomaaliyeed meel walba oo ay dalka Soomaaliya uga nool yihiin. hay-adda SSEO waxay kaalin buuxda ka qaadanaysaa hadduu alla yiraahdo bilicda iyo dhismaha waddankeena Soomaaliya. sidoo kale hay-addu waxay si dhammaystiran shaqo abuur ugu samaysay dhalinyaro iyo hooyooyin. waxay sidoo kale waxbarasho lacag la'aan ah ku dadaalaysaa inay siiso carruurta iyo dhalinyarada duruufaha goonida leh. Tabia Meksa oo gabar Jarmal ah ahna madaxa labaad ee hay'adda Somali Student Equal Opportunity SSEO ayaa iyana halkaasi ka hadashay. Our first step was founding a small mutual company called SSEO Sweet Bakery. We already created jobs for 15 people, including as well women as men, students and bachelor graduates, and we hope that this company will create jobs for 200 employees. Our second plan is to set up big non-profit general practitioners offices and delivery rooms in each of the capital's districts as well as in the surrounding regions. The citizens shall be treated for free. Furthermore, we want to set up big modern non-profit kitchens and lavatories in the refugee camps to increase the people's standards of living. And now we are looking for young architects, engineers, teachers and doctors who would like to participate in our project. And Hassan will shortly make a video with detailed information. Thank you for watching. jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Marburg gudoomiye Samir ayaa aad ugu mahadceliyay hay-adda Somali Student Equal Opportunity mashaariicda ay Soomaaliya ka fulin doonaan. horta marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa ururka ama dal ama hay-adda SSEO oo doonaysa inay wax badan u qabato qaasatan ardayda Soomaaliyeed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka iyo Soomaaliya. ugu dambeyn madaxa ugu sareeya hay-adda SSEO Somali Student Equal Opportunity Hassan Buraale ayaa sheegay in ay garab istaagi doonaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya in ay wax ku bartaan gudaha dalka Jarmalka. meeshii dhallinyaradeen ay ka soo tahriibi lahaayeen waxaan rabnaa 20,000 ay ku soo tahriibayeen waddankan jaamacad inay uga dhigtaan dhinaca bachelor ha noqoto ama master ha noqoto. sidaa daraaddeed lacagta aad ku soo tahriibaysid waa lacag aad wax loogu baran karo. annagana ku suurtagelinayno inaad waddankan wax ku baratid lacagta yarta aad ku soo tahriibaysay. waddankan haddaa wax ku baratiinna waxaad ka helaysaa shaqo weligaana waa joogaysaa intaa shaqo haysid. haddii kalena waddankii inaan dib aan u dhisno waddankeennii markaan halkan wax ku baran waddankeennii inaan dib aan u dhisno ayaan rajaynaynaa. sidaa daraaddeedaan SSEO hay-addan ay u taagan tahay sidii bilicda iyo dib u dhiska waddanka loogu soo celin lahaa. waana ku wada shaqayn doonaa insha allahu dhammaan dhallinyarada SSEO. waxaan rajaynaynaa qof walbo dhallinyarana inuu nagu soo biiri doono.
si kastaba haatee hay'adda Somali Student Equal Opportunity waxay xafiis labaad ay ka fura doonaan caasimadda Muqdisho iyadoo xafiiskooda koowaad uu ku yaalo gudaha dalka Jarmalka. Cabdikariim Xuseen Majaay, Dalsan TV, Germany.